الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركله أيان أد إن سلامية ومعنى قال مانتي مقال كانوا كدوية مقال ظهري وحنرب إن شاء الله تعالى هدي وولول كدلي هدي أد إم بدن أنت مال فريستي أد مدح قبستي ما أنت وحنكو ذا النفس وحنكو ذا وحياب أي سنب أهين با إن أتكم مشغول يعني وحياب أي سنب مدنان على هين با إن أتكم مشغول هكون مشغولين وحيابها آدم وحبك بدلي كرين كون مشغول وحيابها آد بدلي كرتين dadka waxa loo qaybiyaa laba qaybood qayb ku mashquulsan wax aysan waxba ka qaban karin iyo qayb shaqadoodu tahay wixii ay wax ka qaban karaan waxa jira waxyaabo aan waxba ka bedeli karin xitaa hadii aan kun sano oo hadda ka dibsiin oo laano kuwaas hadaad ku mashquulsidna noloshaadu meel cidla ah ayay ku dhamaanaysaa haddaba maxaa kamid ah waxyaabaha aanan waxba ka qaban karin ama aan waxba ka bedeli karin mid kooda waxay noqonaysaa tagtadii baasti si kasto oo aan u didaalno waxba kama bedeli karno wixii dhacay hal daqiiqo ka hor laakiin 10 ayaan ka baran karnaa si nolosheenu u noqoto mid qurux badan waa inaanan ku mashquulin waxyaabihii hore u dhacay dad badan ayaa maanta noloshooda u baakiman tahay waxyaabo hore u dhacay wax kasta oo hore kuugu dhacay maanta waxba kama qaban kartid in aad ka shalaysid oo waqti badan kaaga dhumo oo maanta dhan maskaxda ahaysatid noloshaada wax ay u taraysa male waa tiimamaha Soomaaliyeed ay ahayd wixii tagay tigsimaad male mid labaad ee muhiimka ah ee aysan ahayn in lagu mashquulo ama aadan waxba ka bedeli karin waxay noqonaysaa timaadada waa future-ka waa macquul inaan saadaalino sida ay wax u dhici karaan mustaqbalka laakiin waxa mustaxiil ah in aan xaqiijino ama aan xaqiiq ahaan u ogaano waxa dhici doona wax kasta oo mustaqbalka dhacaya oo wax inaga dahsoon kaliya alle ayaa ku cilmi leh kaliya marka waa inaan ka faa'iideysanaa anaga saacadaha aan joogno waqtiga aan markaas joogno waa inaan diiradda saarnaa waxa mustaqbalka dhici doonana aanu kaliya u deynaa rajo wanaagsan waqtiga oo hadda aad joogtid oo aad ka faa'iideysatid waxa uu sababayaa in mustaqbalkaagu insha Allah taala uu noqdo mid qurux badan tagtadaadi markii waqtigan la dhaafana waqtigii la soo dhaafay oo qurux badan ayuu noqon doonaa insha Allah qodobka saddexaad ee ah waxyaabaha aadan waxba ka bedeli karin waxa weeye waxa dadka kale ka aaminsan yihiin ma jiro qof dadka oo dhan ay wada jecel yihiin oo xitaa nabiyadii Ilaahay soo diray kuwa ayaa doonayay in ay dilaan oo adduunka dhaafiyaan sidoo kale ma jiro qof dadka dhan ay wada necib yihiin waxa dadka kale ka aaminsan yihiin ma ahan wax aad xadidi kartid sidaas daraadeed yuusan waqti kaaga dhumin in aad isku daydid in aad dadka oo dhan wada qancisid ama aad waqtigaaga ku bixisid sababta dadka qaarna ku necib yihiin qaarna ku jecel yihiin kaliya waqtigaaga ku bixi sida aad nafsadaada uga dhigi lahayd mid adduun iyo aakhira guuleysata fashilka ugu horeeya wuxuu ku bilaabanayaa markaad isku daydid qancinta cid walba laakiin guusha ugu horeysa waxay ku bilaabanaysaa markaad diiradda saartid raaligelinta rabbi qodobka ugu dambeeya aanan waxba ka bedeli karin wuxuu noqonayaa natiijada hawleed markasta oo aan hawl qabanayno waxaan jecelnahay in natiijada soo baxaysa ay noqoto midii aan maanka ku haynay inay wax u dhacaan sidii aan wax u rabnay ayna wax kasta ay noqdaan sidii aan qorsheynay laakiin xeerka adduunka yaala sidaas ma aha wax kasta uma dhacayaan sida aad u rabto waa tii alla quraankiisa ku yiri waxa laga yaabaa in aad wax jeclaysataan laakiin ay sharci yihiin ama waxa laga yaabaa in aad wax karaahiysataan oo nacdaan laakiin ay khayr idin yihiin waxa kaliya ee la ka rabo waa inaan dadaalno waa inaan saxno qaladaadkeena maalin kasta natiijadana aan Alle subhanahu wa ta'ala u deeyno mid kamid ah arkaanta iimaanka waa inaad rumayso qadarka Alle shar iyo khayrba laakiin taas micnaheedu ma aha in aan gacmaha is saarano oo aan curdaha ka dhigano qadarka Alle waxaan filayaa in aad afartaas qodob hadda kadibna iska ilaalin doontid oo aad diiradda saari doontid waxyaabaha kaliya ee aad wax ka bedeli kartid ilaa muuqaalka xiga salaamu alaykum